maareynta waqtiga ama waxa loo yaqaan time management ama idaaratul waqt. ingiriisku waxay ku maahmaahaan waqtigu waa lacag. aniguse waxaan leeyahay lacag iska daaye, waqtigu waa ka qiimo badan yahay wax kasta. maxaa yeelay dahabka iyo dheemanka waad shaqaysan kartaa, laakiin daqiiqadba ha ahaatee wax zamana oo aad soo gadan kartid ma jiro. maamaha carbeed baa waxay odhanaysaa waqtigu waa seef oo kale, ama adaa goynaya ama isagaa ku goynaya. dhab ahaan markii loo hadlo daawade, adigoo dhan waxaa tahay waqti, ama second dheh ama daqiiqad dheh ama saacadba dheh. markii hal second kaa tago cumrigaaga, qayb adiga ah ayaa tagay. dadka ku dheela waqtigooda waxa weeye kuwa aan lahayn yool nololeed ama himilo inay gaaraan ay rabaan. haddaan isku dayo inaan kuu fududayo waxa loo yaqaan maareynta waqtiga, ama sida ugu fiican oo loo maareeyo waqtiga waxa weeye caawa oo la joogo berri wixii aad qaban lahayd ayaad waxaad ku qoranaysaa meel. kow shaygaas, labo shaygaas, saddex shaygaas, afar shaygaas, weliba waxa u kala horumarinaysaa say u kala muhiimsan yihiin ama u kala degdegsan yihiin. marka maareynta noocaasa ama waxa la yidhahda to do list ama qaa'imatul acmaal ama waxyaalaha inaad samayso berrit aad rabtid qorashadeedu maxay kuu sahlaysaa inaadan shaqadii kala ilaawin, oo qayb waliba wixii aad samaysana aad og tahay, wixii aadan samaynna aad og tahay.